Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan si walba noo daawanaysaan kusoo dhawaada warka Samareeb TV. Qodobada warka Samareeb TV ugu doorkoran ayaa waxaa ka mid ah musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele oo la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland. Ku dhawaad 6 qof oo ku dhimatay gaari miino la kacday oo ku sii jeeday magaalada Dhobley. Puntland oo soo jeedisay doorasho lagu qaban lahaa Gaalkacyo. wasiir Bayle oo qaramada midoobay kala hadlay arrin la xiriirta doorashada shirweynaha Garoowe ee muxaafadka iyo mucaaradka oo maanta furmaya. Qodobada kale ee caalamka ayaa waxaa ka mid ah Joe Biden oo ka cabanaya isbaarooyin uu u dhigtay madaxweyne Donald Trump. Daawada hadda nagu cusubtahay nagu soo biiro subscribe saar gambalka nafro si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay halkan aynu soo dhigno. Waa maalinimo Talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 29 December 2020. Kun soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. Musharaxa madaxweynaha Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele kana mid ah midowga murashaxiinta ayaa magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa uu kula kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe. kulanka oo ka mid ah kulamada hordhaca u ah shirka madasha wadaaga macahadka Heritage ayaa waxa ay ugu wada hadleen xaaladda dalka sida arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho la isla ogol yahay. musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele ayaa madaxweynaha Jubbaland ugu mahadceliyay kaalinta uu ka qaadanayo dowladnimada Soomaaliya iyaga oo ku ballamay inay kulamada sii joogteyn doonaan. Daahir Maxamuud Geele musharax madaxweyne oo Garoowe ugu tagay ka qaybgalka shirka madasha wadaaga macahadka Heritage ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda dowlad goboleedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan haweeney iyo ilmaheeda oo 2 bilood jiray ayaa geeriyooday kadib markii uu qarax qabsaday gaari ay la socdeen. gaariga la sheegay in uu haleelay qaraxa ayaa la sheegay in uu ku sii jeeday magaalada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale maamulka deegaanka Dhobley ayaa dhacdadaas ka hadlay waxayna sheegeen in qaraxa ay shabaab goobta ku aaseen. qaraxyada haleela gaadiidka shacabka ayaa soo badanayay muddooyinkii la soo dhaafay kuwaas oo shabaab ay wadada u geliyaan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwa maamul goboleedka iyo ciidamada midowga Afrika ee u jooga Soomaaliya. dhinaca kale bilo ka hor ayay ahayd markii meel aan ka fogeyn gobolka Bay ay miino kula qaraxday gaari caasi ah oo ay la socdeen culimo ku sii socday gobolkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 6 culimo ah. gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Mudane Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo doorasho lagu qaban lahaa gudaha magaalada Gaalkacyo kadib muran xoogan oo hareeyay doorashadaasi. Sanyare ayaa faray gudoomiye ku-xigeenka Gaalkacyo inuu joojiyo doorashadaas oo ka dhici lahayd deegaanka wadajir oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah. warqad ka soo baxday xafiiska Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa waxaa lagu sheegay in deegaankaas uu yahay mid istiraatiiji ah isla markaana loo baahan yahay in marka maamul loo sameynayo loo maro wado sax si looga baaqsado xasilina daro. sidoo kale waxa uu ugu baaqay maamulka Gaalkacyo inuu wada tashi geliyo doorashadaasi si xal looga gaaro muranka ka dhashay. ugu dambeyn wuxuu ka dalbaday shacabka in lagu wada shaqeeyo xasiloonida gobolka iyo sidoo kale nabadgelyada guud ee deegaanka. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo xubno ka tirsan guddiga amniga doorashooyinka ayaa kormeer ku tagay xarunta gaadiidka booliiska halkaas oo loo asteeyay in lagu qabto doorashooyinka kuraasta labada aqal ee Somaliland iyo Banaadir. ujeedada kormeerka ayaa ahayd qiimeyn ay guddiga ku sameynayeen xarunta gaadiidka booliiska oo loo qorsheynayo in lagu qabto doorashada kuraasta labada gole ee dowladda gaar ahaan Somaliland iyo Banaadir. arrintan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda ugu jirto dardargelinta hanaanka doorashooyinka maadaama dhowaan uu guddiga soo bandhigay habraacyada doorashooyinka 2020-2021 ee qalka sare. wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa faahfaahin ka bixiyay shir uu aaladda fogaan aragga kula yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay kaasi oo ay kaga wada hadleen dardargelinta hanaanka doorashooyinka ee dalka ee 2020-2021. Bayle ayaa si gaar ah qaramada midoobay kala hadlay qarashaadka ku baxaya doorashada dalka oo intooda ugu badan ay bixinayso beesha caalamka. sidoo kale wuxuu tilmaamay in Soomaaliya ay ka go'an tahay in laga wada shaqeeyo howlaha lagu horumarinayo hanaanka dowladnimada. wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Bayle
ayaa horey u shaaciyey in qiyaas ahaan doorashada dalka ay ku bixayso lacag dhan 40 milyan oo boqolkiiba 10 una dhigantaa 4 milyan laga rabo dowladda federaalka Soomaaliya halka inta kalena ay bixinayso beesha caalamka. Soomaaliya ayaa haatan isku diyaarinaysa doorasho isugu jirto tan baarlamaanka iyo madaxweynaha taas oo ay weli isku fahmi la'yihiin dowladda iyo mucaaradka dalka. Magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa maanta si rasmi ah ugu furmi doona shirka madasha aragti wadaagga sanadlaha ee uu soo qaban qaabiyey Machadka Heritage kaas oo looga hadlo xaaladda dalka iyo doorashada. Shirweynahan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qaybgelaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka, guddoonka labada aqal, xubno ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka. Madasha aragti wadaagga oo qaadan doonta 3 cisho ayaa waxaa sanadkan diiradda lagu saaraya sidee 2025 looga bixi karaa kumeel gaarnimada iska socota si dalka uu helo dastuur dhammaystiran, doorasho qof iyo cod ah iyo nidaam federaal oo shaqaynaya. Sidoo kale madaxda ka qaybgalaysa shirkan sanadlaha ah oo isugu jiro mucaarad iyo muxaafid ayaa xalay yeeshay kulamo hordhaca ee isku wareysteen dhinacyadaasi. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale adkeeyey ammaanka magaalada Garowe oo la circiiraysa mas'uuliyiin kala duwan oo ka qaybgalaysa shirkaasi. Waa sanadkii ugu horeeyay madasha aragti wadaagga sanadlaha ah ee Machadka Heritage lagu qabanayo gudaha dalka iyada oo markii hore lagu qaban jiray Djibouti. Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in gobolka Hiiraan uu galay xaalad cusub taasoo uu ku sheegay in dowladda federaalka go'aansatay in dadka reer Hiiraan u isticmaasho waxa uu ku sheegay farsamadii uu isticmaalka adeegsan jiray. Dowladda federaalka ayuu ugu baaqay in ay joojiso ciqaab wadareed uu sheegay in ay ku hayso dadka reer Hiiraan haddii kalena aanay arrintan noqon doonin mid la iskaga harayo. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri waa cunsureed, waa midib takoor in ummadda lagu cadaadiyo raashinkii oo lagu joojiyey Beledweyne laga dhigo xabsi dusha ka furan lagu xabadeeyo dadna ku dhinto. Waa waxaan la iskaga haraynin mas'uuliyiinta sarsare ee waddanka iyaga ka jawaabi doona haddii aad isleedihiin maxkamado kama jiraan waddanka gudihiisa waa la hurdaa siiyey waxaan huraynin ayay noqonaysaa waxa aan harin oo mar walba lagu xisaabtamo ayay noqonaysaa. Waxaa habboon inta ay goorgoori tahay in aad ka waantoodaan arrintaasi. Hadalkan ku soo yeeray xildhibaan Goodax ayaa ku soo aadiyay xilli Beledweyne uu ka socdo howlgal lagu qabanayo dad lagu eedeeyey in ay soo abaabuleen banaanbaxyadii toddobaadyo ka hor ka dhacay magaaladaasi ee lagu diidnaa safar uu ku tegi lahaa madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe. Madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa sheegay in kooxdiisa kala guurka ay la kulmeen waxa uu ku tilmaamay carqalad khayru mas'uulinimo ah oo kaga timid hoggaanka siyaasadeed ee wasaaradda difaaca. Wuxuu sheegay in kooxdiisa kala guurka aysan helin macluumaad ku filan meelaha muhiimka ah ee amniga qaranka. Hase yeeshee eedayntaas waxaa ganafka ku dhuftay kusmaha xokiyaha difaaca Christopher Miller. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa digniin adag u jeediyey jarnaalka fallaagada ah ee ka dagaalamaya dalka Liibiya Khalifa Haftar. Axadii Hulusi ayaa wacad ku maray in haddii Haftar uu weeraro fariisimaha military ay xogaga dalka Turkiga ku leeyihiin Liibiya ay taasi ka dhigan tahay dhamaadka jarnaal Khalifa iyo kooxdiisa. Ankara ayaa waxa ay si weyn u taageertaa xukuumadda caalamka uu aqoonsan yahay ee ka dhisan Liibiya iyada oo joogitaanka Turkiga ee Liibiyana wax badan uu ka bedeshay wejigii dagaalka waxaana meelo badan gacanta looga dhigay
jarnaalka iyo maleeshiyaadkiisa. hadalka wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo maalmo ka hor Jarnaal Khalifa Haftar uu ku goodiyay in uu beegsan doono ciidamada Turkiga ee taageeraya dowladda Liibiya kuwaas oo fadhigoodu yahay bariga waddankaasi. Haftar ayaa waxa uu taageero ka helaya dalalka kala Ruushka, Imaaraadka Carabta iyo Masar. waxaase xusud mudan in bishii Oktoobar ee sanadkan ay gaareen dhinaca kale dhinacyada ku hardamaya siyaasadda Liibiya heshiis xabad joojin ah oo ay gadaal ka riixayso jamciyadda qormaha ka dhaxaysa ay gaareen. intaas ayaan ku saafmeerina warka Samareeb TV. intaan warkan warar badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.